السلام عليكم kusoo YouTube channelkayga King Barkhay fadlan haddii taa walaal booqashada ugu horeysay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saartid sidoo kalena videogan like saartid mahadsanid maanta waxaan rabaa muuqaalkeen inaan ku sharaxo musalsalka Isbaanishka ee taxanaha adduunka oo dhan qabsaday kaasoo ah mid aad iyo aad u xiiso badan dadka dhan ay jecel yihiin musalsalkaas oo ka kooban 5 season ayaan waxaan rabaa season usoo koobo oo halkii muuqaalba aan ku dhameeyo hal season oo dhameystiran weliba wax ka yar 10 daqiiqo ama 10 daqiiqo naftirkeedaba waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka heli doontaan oo xiisayn doontaan qaybaha kale ee dhiman kulay dad badan idin mid waxa laga yaabaa inay fiirsadeen qaar idinkiiga ma fiirsanin soo marka waxaan isku dayi doonaa insha Allah qofkii fiirsaday iyo qofkii aan fiirsanin si uu ku fahmi karo ayaan u soo koobi doonaa insha Allah daawasho wanaagsan like wixii inoo tahay dhiirigelin subscribe-kan sidoo kale mahadsanid intaan muuqaalka sharaxaadiisa bilaabin ka hor aniga iyo daawadayaasha sharafta leh waxaan wada gali jirnay challenge-gaas oo ah waxaan ku tusi doonaa clip haddii aad clipkaas ku qosasho waxaa waajib kuga ah inaad muuqaalka like saartid haddii aad ku qosli weysana ikhtiyaarka adiga ayaa iska leh ama isaar ama iska dhaaf warniyo qaabkee kugu jiraa waxay jirtaa jeego war asigii dhanka jar basxiir ka dhig aad maxaa kugu dhacay war asigii dhanka jarniyo basxiir ka dhig sidaana fiican wiilkayga quruxaa tahay waa dhadhalaalowsaa markale mahadsanid aan gudagalna filimkeena kadib markii fashilantay dhac bangi oo ay geysatay haweeney lagu magacaabo Tokyo ayaa nin lagu magacaabo professor ayaa wuxuu ka badbaadiyay inay booliska qabtaan wuxuuna u soo jeediyay inay kala qayb qaadato dhac aad u weyn si aysan mar dambe ugu qasbanin inay shaqeyso lacagta tirada badan ee ku soo aadi doonto awgeed kadib wuxuu siiyay sharaxaad kooban oo la xiriira dhicitaanka la qorsheeyay professorku wuxuu si farshaxanimo leh u hagayaa koox ka kooban 8 tuuga ah oo la kala yiraahdo Tokyo, Rio, Berlin, Nairobi, Denver, Moscow, Oslo iyo Helsinki waxay isku diyaariyeen inay ku duulaan guriga macdin baarista ee Spain iyagoo wata dhar guduudan iyo maskarada daali waxayna gacanta ku dhigeen 67 qof oo haystayaal ah taasoo qayb ka ah qorshahooda ay ku daawacanayaan 2.4 bilyan oo euro tani waa Raquel Murillo waana boolis dambabaara ah iyada ayaana kiiska mas'uulka ah laakiin waxay ogaan weyday in maskaxdii dhan ay ka dambeysay xatooyada ay ka dhowdahay intii moodeysay iyada ¡Quítense los antifaces! tuugadu waxay bilaabeen inay daabacaan lacagta halka Arturo Roman oo ah mid ka mid ah haystayaasha oo bilaabay sameynta qorshayaal baxsad ah oo ay ku caawinayso xog hay'adiisa Monica sidoo kalena uur u leh asiga waxaa lagu qabtay taleefanka gacanta oo ay qarsanaysay wuxuuna Berlin ku amray Denver inuu dilo iyada dhanka kale qalad uu sameeyay Rio ayaa horseeday in boolisku ay ogaadaan aqoonsigiisa iyo Tokyo iyadoo loo maleynayo in Denver uu dilka ku fuliyay Monica isagoo raacaya amarkii Berlin Moscow oo ah Denver aabihiis aad ayuu u niyijabay wuxuuna isku dayay inuu isku dhiibo booliska laakiin waxaa ka diiday oo celiyay wiilkiisa dhanka kale xiriirka Raquel iyo professorku wuxuu noqonayaa mid aad u sii qoto dheeraanaya Raquel waxay si qarsoodi ah u dirtay saaxiibkeeda booliska Uncle Rubio oo ay la socdaan koox caafimaad oo loo ogolaaday inay daaweeyaan Arturo oo ay si qaldan u toogteen boolisku si kastaba ha ahaatee professorku wuxuu arkay dhaqdhaqaaqeeda oo wuxuu ku amray kooxdiisa inay mikrofon u guliyaan ookiyaalaha Uncle professorka ayaa ka hormaraya booliska si uu uga takhaluso cadeymo muhiim ah oo khatar gelin kara qorshayaashiisa cadeyntaas oo ah fara ku dhex jira baabuur yaal garaashta baabuurta la nacay kaas oo Helsinki loo diray inuu burburiyo laakiin uu dayacay inuu burburiyo Вовсе нет, видите мой кошелек. dhanka kale
Denver wuxuu Monica ku duryeelayaa meel qarsoodi ah kadib markuu lugta ka togtay isagoo iska dhigaya inuu dilay oo kale waxayna aakhirka isku soo dhawaadeen Monica. Professorku wuxuu ku hanjabay inuu dili doono qoyska ninka Ruushka ah haddii wejigiisa sharaxaadiisa way ekaato isaga. Berlin wuxuu ogaaday in Denver uu dilay Monica oo wuxuu aaminsan yahay in aqoonsigiisa la kashifay isaga dartiis wuxuuna ku dhawaaday inuu dilo. Tuugtii ayaa bilaabay qorshe ay ku doonayaan inay u adeegsadaan lahaystayaasha si ay u joojiyaan booliska oo ay u helaan waqti dheeraad ah. Desde que estoy aquí dentro solo te he oído decir estupideces. Laakiin Raquel waxa ay heshay fursad ay ku shaaciso sir uu Berlin ka qariyay kuwa kale sirtaasoo ah inuu biliyar ugu harsan tahay inuu sii noolaado sababo la xiriira xanuun aan daawo lahayn. Waxay kaloo isku dayday inay Rio ku qanciso inuu isdhiibo. El juez te garantiza la libertad en muy poco tiempo. Raquel waxay lumisay kalsoonidii ay u haysay Angel oo aan ka warqabin mikrofoonka tuugta ku dhex qariyay ookiyaalihiisa. Arturo waxa uu diyaarinayaa qorshe uu ku baxsado laakiin waxa uu niyad jabiyay markuu ogaaday in Monica oo ahayd xaaskiisa ay Denver xiriir la yeelatay. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Te estaba violando este salvaje? No me va a violar, no digas tonterías, Arturo. Angel oo kiiska laga saaray ayaa koomo ku jira kadib markii uu shil baabuur galay. wuxuuna professorka aqoonsigiisa ku ogaaday war uu horey uga qaaday si qarsoodi ah. 17 lahaystayaal ayaa u suurta gashay inay ka baxsadaan waxayna dhaawac halis ah gaarsiin Oslo. Están clausurando la puerta. ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! Raquel hooyadeed oo qabta cudurka Alzheimer ayaa dhageysanaysa fariinta Angel intay qortay iyay isku dayday inay wacdo taleefanka Raquel. Faahfaahin dheeriya cudurka Alzheimer waa cillad maskaxeed oo si tartiib ah u burburisa xusuusta iyo xirfadaha fikirka. Inta badan dadka cudurka qaba ayaa marka hore soo muuqday bartamihii lixdamaadkii. Aan ku soo noqona filimkeena. Raquel hooyadeed oo qabta cudurka Alzheimer ayaa dhageysanaysa fariinta Angel intay qortay iyay isku dayday inay wacdo taleefanka Raquel. Markii Raquel ay ka qaban weyday ayay waxay wacday professorka si uu fariinta ugu gudbiyo. Professorku wuxuu aaminsan yahay inuusan lahayn doorasho aan lahayn inuu dilo Raquel hooyadeed. gurigeeda ayuu aaday oo wuxuu qaxwaha ugu shubay sun balse markii ay cabbi rabtay qaxwadii ayuu koobkii gacanteeda ka tuuray waxayna u malaysay inuu qaladkeeda yahay. Markaas ayuu fahmay inay qabto cudurka Alzheimer. Si fudud ayuu u turtiray fariintii wuxuuna qaatay qoraalkeedii. Lo único que te he dejado el jardín hecho una pena. Kadib professorka oo wiilinaysa Raquel ayaa waxay aadeen halka loogu wacay Raquel halkaas oo ah filadii ay ku qorsheynayeen xatooyada. taxanaha Money Heist ama La Casa de Papel seasonkiisa koowaad halkan ayuu ku dhamaanayaa. seasonkiisa labaadna waxa uu ka bilaabanayaa isla halkan oo ah gurigii ay deganaan jireen markii ay qorshaha dejinayeen. waxayna u muuqataa in meeshaan laga heli doono cadeymo aad iyo aad u tiro badan. cadeymahaas oo halis ah ama khatar u horseedi karta qorshaha dhicitaanka ee professorku dejiyay. fadlan la soco muuqaalka qaybtiisa xigta. waa ku maasantay daawashada muuqaalkaaga. haddii aad intaan la soo gaartay waxaan ku leeyahay mahadsanid. waxaan mar kale ku xasuusinayaa inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe saartid wixii fikradaada commentiga noogu soo roobtid. intaas waxay inoo tahay dhiirigelin adigana agtaada waxba kama ahan. mahadsanid waa inoo mar kale insha Allah muuqaalka xigana la socda.